بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga iyo waliba wararka markaas xiisaha leh ee sportiga la xiriira oo markaa idin soo gudbinaya xogta ciyaaraha. aan ku hormarnay Patrick Evra oo niyad jabiyay jamaahiirta kooxdiisii hore ee Manchester United isagoo Paul Pogba kula taliyay inuu isaga tago kooxda Manchester United. halyeega kooxda Manchester United Patrick Evra ayaa ka waramay mustaqbalka xidiga kooxdiisii hore ee Paul Pogba oo ay soo wadaageen qolka labiska United, Juventus iyo xulka qaranka France. Pogba ayaa soo dhalaalay labadii bilood ee ugu horeysay oo kooxda uu joogay tababare Ole Gunnar Solskjaer, balse waxaa xaaladiisu ay adkaatay qaybtii hore ee xilli ciyaareedkii niyadjabka lahaa ee kooxda Manchester oo Jose Mourinho uu maamulayay. Pogba ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa markaasi ku xeyndaabnaa xaalado aad u adag oo la xiriira dhinaca xirfadiisa hoos u dhac ballaaran laga dareemayay iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid oo waqtiyadii ugu dambeeyay si aad ugu raad joogtay ciyaaryahankan inay hesho. halyeegii hore ee xulka qaranka France iyo kooxaha Manchester United iyo Juventus Patrick Evra oo u waramay Sky Sport ayaa sheegay inay tahay in Paul Pogba isaga tago guud ahaanba garoonka Old Trafford maadaama ay ku hareeraysan yihiin waxyaabo badan oo xun, isagoona sidoo kale kula dardaarmay inuu si dhaqsi ah ugu biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid halkaas oo magac weyn uu ku sii abuuri karo. wararka kalena waxay sheegayaan weeraryankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo hadda u ciyaara kooxda Everton Theo Walcott ayaa loo sheegay in markaasi isaga bixi karo garoonka kooxda kubadda cagta Everton ay ka ciyaarto inuu markaasi isaga tago kooxda. ciyaaryahankan oo 16 bilood ku sugnaa garoonka Gunsburg lagu magacaabo kooxda Everton ay ka dhisan tahay ayaa waxa la leeyahay kooxda maamulkeeda ee Everton waxay u sheegeen inuu isaga tagi karo kooxda maadaama xilligan looga baahnayn. waxaa Walcott la xiriirinaya kooxo dhowr ah sida West Ham iyo kooxo kale oo Premier League ka dhisan. dhinaca kalena ciyaaryahanka u dhashay dalkaasi Turkiga balse dhalasho kale ka haysta dalkaasi Jarmalka ee Gundogan ayaa waxa uu diyaar u yahay ayaa leeyahay in uu mar kale heshiis dheer oo 2020 gaarayo ama 22 u saxiixo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Gundogan ayaa waxaa lagu soo waramaya in waqtiyadii ugu dambeeyay si wanaagsan macallin Pep Guardiola ay isku fahmeen oo inta badanna boos joogta uu ka helo kooxda Manchester City isagoo qadka dhexe kooxdaasina uu maamulo. waxaa la leeyahay markii ay ku guuleysteen ciyaaryahankan 28 jirka ah koobka Premier League ayaa waxaa rajo weyn niyadiisa uu geliyay in uu kooxdaasi wali uu u sii ciyaaro oo markaas heshiis cusub u sii saxiixo. laakiin wararka ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in kooxda Manchester City ay iyana dhankooda markaa aad ay diyaar ugu yihiin in ciyaaryahan Gundogan ay heshiis dheer ka saxiixdaan. ugu dambeyntiina weeraryankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool una ciyaara kooxda Barcelona Philippe Coutinho ayaa la sheegay in uu ku laabanayo garoonka Anfield. ciyaaryahankan oo boos joogta aanan ka haysan kooxda Barcelona ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ku laabanaya kooxda hore ugu soo ciyaaray ee Liverpool, taasi oo ilaa imika aan la ogeyn, balse waxaa lagu soo waramayaa in kooxda Barcelona maamulkeeda ay ka niyad jabeen ciyaaryahankan reer Brazil oo sanadkii hore markaa kooxda Barcelona ku biiray oo ay ka soo qaateen Liverpool, laakiin waqtiyadii ugu dambeeyay Coutinho oo kubadiisu ay hoos u dhacday ayaa waxaa la sheegayay inuu Premier League dib ugu laabanayo. kooxo dhowr ah sida Manchester United, Chelsea ayaa aad u doondoonayay, laakiin waxaa wararka imika aynu helayno ay sheegayaan in ciyaaryahan Coutinho ku laabanayo kooxdiisii hore ee Liverpool.